wararka iyo macluumaadka laga helayo gobolka Gadow ee dawlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaq xooggan oo dhanka ciidamada ah ciidanka Jubbaland ay ka bilaabeen gudaha magaalada Doolow oo ka tirsan gobolka Gadow 48 saac la soo dhaafay baraha bulshada ayaa si weyn loogu baahiyay cutubyo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo la sheegay in loo daabuli doono degmooyin ka tirsan gobolka Gadow sida balad xaawo garbahaare iyo Doolow sargaal sare oo ka tirsan ciidanka daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland oo la hadlay telefishinka Hemilo ayaa waxa uu sheegay inaysan cabsi ka qabin duulaan kaga yimaada dawladda dhexe ee Soomaaliya wixii ka dhacay Raaskambooni wax ka daran ayaa halkan ka dhici doona hadii dawladda Soomaaliya ay isku daydo inay duulaan ku qaado dhulka nabdoon ee gobolka Gadow ee dawlad goboleedka Jubbaland ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidanka daraawiishta Jubbaland oo telefishinka Hemilo la hadlay sidaas lamida kaadiriinta siyaasadeed ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga soo xigtay in markale la isku dayi doono in markaas la carqaladeeyo ama la isku dayo in la soo qabto ama meeshaba laga saaro madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland tan oo dadka arrimaha falanqeeya aysan sheegeen ama aysan xilligan sheegayaan inaysan sahlanin isku daygi daaqada looga saaray madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed isku dayga hadda la doonayo in gobolka Gadow laga abaabulo iyo hadalla xanaf leh oo shalay ka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku tusinaysaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu markan u tafaxaydanayo in uu tijaabiyo maamulada Puntland ama Jubbaland si daaqada looga saaro hoggaanka maamuladaasi oo aan daacad u ahayn filla Soomaaliya sidaas lamida xubnaha guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ee heer federaal ayaa la filayaa inay sanaadiiqda codbixinta geeyaan degmooyinka Doolow balad xaawo iyo garbahaare si loo abaabulo qorshayaal waaweyn oo ka dhana maamul goboleedka Jubbaland oo halkaasi ka arrimiya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani xubnaha la magac baxay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed madaxweynaha Jubbaland intaba waxay ku hardamayaan kursiga ugu sareeya filla Soomaaliya laakiin halka ay sartu ka qurunsan tahay waa inaan wali lagu heshin nooca doorasho ee ka dhacaysa dalkan haddaba daawade dhaqdhaqaaqa ka socda gobolka Gadow kala soco telefishinka Hemilo ma ka sheeganaysaa xanuunada kala goosida jilbaha ama simaha ma isku aragtaa barra jilbaha haddaba hadday jawaabtaadu haa tahay bishaaro iyo war farxad leh waxaa soo gaaraya markii shanaad Muqdisho Specialist Hospital 14 Abriil 2026 Dr. Sanjeb Kumar Behra oo u dhashay dalka Hindiya kuna taqasusay qallimada jilbaha iyo simaha ayaa imaanaya waxaad telefoonada shaashada kaaga muuqda ama isbitaalka si toos ah u soo booqo diiwaangelintu way socotaa